kan yari wuxuu doonaya inuu cunto ka iibsado hudheel. kaadhkiisu wuxuu noqday zero balance. waxa uu baadhay jeebadihiisii, waxuu ka helay xoogaa shilimaan ah, balse uma ay goynayn inuu ku iibsado cuntada. cuntadii uu dalbaday intuu iska dhigay ayaa iska fadhiistay miis bannaan. gabadhii kaasheerka ahayd ayaa u keentay cuntadii, waxaana u sheegtay in ay iyadu ka bixisay. waxaanu weydiiyey sababta ay uga bixisay, waxaanay u sheegtay in ay xaaladdan oo kale soo martay. iyadoo maalin gaajoonaysa ay gabadho u keentay cunto, soo kalena ay siisay warqad ay ku qoran tahay wax haru ula sii bax. warqaddiina waxay siisay ki yaraa, waana iskaga tagtay. ki yaraa markii hooyadii u tegey, hooyadii oo warwarsan, hooyadii waxay ku tidhi, waan ka xumahay in aan ku diray cunto la'aan. wuxuu u sheegay inuu soo cunteeyey oo ay gabadh kaasheer ah ka bixisay lacagtii. warqaddii ayaanu dhibay hooyadii. hooyadiina waxay xaqiiqsatay in ay warqaddani tahay tii beriga ay siisay gabadhii yarayd ee ay cuntada siisay. wanaaggii ay berigaas samaysay wuxuu dib ugu soo noqday muddo kadib inankeedii.